runtii horta halkan aan xasan waa inaan yaran adeero ahay waana inaan u dhalin yar hawsha kullu wixii dardaarana waxaan isku la tageynaa xafiiskan ku oran doonaa wax yar baan halkan xilwareejinta horta aan wareejinayo guud ahaan waa 4 qaybood ama 5 qaybood waa hantida maguurtada hantida guurta sida gaadiidka dhaqdhaqaaqa xisaabaadka hawlaha shaqaalaha iyo xafiisyada iyo deyn haday jirto runtii xasan wuxuu ku soo beegmay waqtigii hore waqti cakaran bay ahayd deyn aad u fara badan baa halkan aniga maalintii la igu wareejay laakiin maanta anigu intaan joogay shaqada socota mooyaane hal santi oo deyn cid kama qaadin oo dawladda hoose lagu leeyahay laakiin wixii shaqada socota ee midalan service ka la yiraahdo midalan waxa bil bartankeed stationery iyo shidaal iyo meelaha wix laga soo qaaday kulli way qoran yihiin taas waa taa gaadiidka halkan markii waxaan anagu soo kordhinay hal cagaf iyo gaariga qashinka iyo Land Cruiser-ka maayarku wato iyo qalabka halka yaala dhismayaasha waxaan soo kordhinay wixii hore guud ahaan xilka waa la isku wareejiyaa oo wax fara badan baa nagu qoran imika oo midalan xasan anaan ku wareejinaya oo ay kamid yihiin xataa guryaha qaar kuwan imika dawladdu hiibisay xil wareejinta qaar baa ku jira waxa kale oo guriga halkan naga soo horjeeda fooqa waa intaan joogay baa la dhisay u banaanaa meeshaasi wixii aan wareejinayna waxa had marka hanti la yiraahdo waa waxaan runtii u mahadnaqayaa oo aad ugu maqadnaa shaqaalaha waaxaha dawladda hoose ila soo shaqeeyay oo aan la'aantood wax shaqihii iga suura galeen halkan waxaan iyagana aad ugu mahadnaqayaa oo aan sidaas la mid ugu mahadnaqayaa xildhibaanada iyo golaha deegaanka gudoomiyahooga iyo gudoomiye ku-xigeenka oo runtii ila shaqeeyay si waayeelnimo sababtuna waxay ahayd anu maadaama aan ragga ugu weynaa geel duq waa loo tumaaba la yiri sida fiican ila shaqeeyay baan iyagana ugu mahadnaqayaa runtii waxa kaloon si gaar ah ugu mahadnaqayaa kooxda development-ka ka shaqeysa ama horumarinta oo coof la hogaamiyo iyo Axmed Nuur iyo injineerka degmada oo runtii kartidooda iyo hufnaantooda ku keenay wax badan oo aan degmooyinka kala gaarin sida mesela JBLG oo kale performance-ka marka la sameeyo wax la qabanayo ee la qiimeynayo maalinaan gaarin halka meelaha ay gaarsiiyeen runtii waxa kale oo u mahadnaqayaa isu duwayaasha taliyaasha saldhigyada rugaha oo runtii baadadkan ku duuleynay ahaa iyaguna si fiican ila shaqeeyay muddadii aan meesha joogo waxaan iyana runtii doonayaa inaan wax yar ka taabto intaas haddaan ka gudbo waxaan doonayaa wax yar ka taabto مثلا dardaaraniga waxa jirta waxyaabo badan meesha meel horta iska dhiban dawladda hoose waxa dhawa calool dawladda hoose waa caloolna qashin baa ku jira wax badan baa ka soo daadanaya dawladda hoose waxa dadku waxay u haystaan meel wax lacag loo soo doonto oo wax laga qaato marka runtii xasan yare waxaan ku dardaarayaa mushkiladaha igala kulmay waxa kamid ahaa rag waaweyn oo qaarkood wasiirada gobolka u dhashay yihiin oo cashuurteena masaakiinta laga qaado in laga dhaafay iyagu doonaya dad kale oo suuqan jooga oo doonaya in gaari shidaalka loogu shubo qaadna loo qaado haddii aanay intaasi suura gelinna noqonayso in la yiraahdo qofkani ma shaqeeyo waxba ma qabto waa dantooda marka xasan waxaan kula dardaarmayaa dhibaatooyinka badan inuu ka foojignaado ummadan loo shaqeynayana waa dadkeenii ilaahayna uu nagu eeganayaa waxa la qaadayana waa cashuurta wax aad u yar in iyagana wax loogu qabto ummadana wax loogu qabto wixii hawl ah ee xagga shaqada ah waxa jira waa sanad bilowgii wixii farsamo shaqo ah waxaan jecelahay inaan ugu wareejiyo xasan xafiiska markaan tagno wixii dardaaran gaar ah siinayna xafiiska ayaan ku siinayaa guud ahaan